هذا هو حق في بني آدم وكلا ليه محاول دحية ilmuhu 6 bilood 7 bilood markuu yahay in la soo rido iyo hadduu dabada u soo dhacba inay islaamtu cunaa ku dhigto baqtiiso markuu soo baxo haddii la baqtiyo waxay ku oranayaan qaanuunka qabanayo qof baa la dilay laakiin markuu halkan ku yara qarsoon yahay haddii kolba lug la soo jaro qaanuunku qaban maayo waa dulinimo kale waa isla noocii uun laakiin aqliga bini aadamku waa wax aad u yar waa angalka wax laga tuso aqliga bini aadamku gabigiisuba waa angalka view-ga wax laga tuso kii horena view-gay ku tuseen waxa weeyaan view aad u fool xun oo ah qof noolol xabaal nololiyay kana waa view xorriyada baa laga tusay gabadh miyaanay xor ahayn miyaanay xaq u lahayn inay nafteeda bastam garayso iyadu go'aansato miyaanay xaq u lahayn waxa caloosheeda ku jira inay iyadu ka taliso angal yaroo kala laga tusay laakiin laguma tusin qofka nool xuquuqdiisa meesha ku jira qofkan isagu meesha ku jira xaqiisa waa laga qariyay idan ilaahay wuxuu ballanku nabigu ka qaadayay haweenka الله يا رسول كي سبب الله كي قادم وحكمه ولا يقتلنا أولادهن عرورتو دينا نيلايني أما مدبت شوقها هذا أما مدور كشرها هذا قاتش يبقى لو دليل إلهي بدتك أرزاقه إلهي بدتك أرزاقه تاك سناده بشر بطيء بشر يراضي وفلسفة قضير مسيحي دوني كسو كرديي ووداد هانشري wadaad dhaqaalayahan oo kristan oo ingiriis oo la yaqaanay falsafadii ayaa leeynoo buunbuuniyo laga dhigay basharku inuu baabaayo ilaahay baa koonkan ugu talagalay waa qadara fiha aqwataha inta dad ku nool ilaahay baa quudkoodana ku zeeriyay laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala kullama bini aadamku baahidiisa ay korodhaba oo dadku soo tiro bataanba ilaahay futuuxaat cilmi uu furaya qaab cusub ay wax beeri karaan ama wax soo saari karaan tiradu markay badataba way cusubba Allah fara subhanahu wa ta'ala ibn aadam ku noolaan karo halaga yaaba hal hektar waagi hore inta laga beeri jiray maanta in laga beero aslaba in ku filan sababtuna ay tahay in futuuxaadka cilmiga ilaahay ibn aadam ku furay idan wasaa'ishu siday doontaha u korto ilaahay baa ballan qaaday wa qadara fiha aqwataha meesha lagu nool yahay quudkeedu inuu yaalo sadarad ilaahay wuxuu leeyahay wala yaqtulna awlaadahunna arurtooda ay dili يعني بين أبورن بين إلهي هواب وإلما آن ننكو دالين أما آن دالين يأوبت كذا كدري إلما آن دالين واللقيط يسوق هذا طي قف بني آدم إن لسوق هذا الكوريا دين توا كمد لكن إن لون نسبة شيء تابان كمد حين يعني قف إن أتكلم حضا إلما الله طورين تسوق هذا إن الكوريسو وأنا قاعد سمعنا سوا خير لكن هكو أفتريني oo cid aan dhalin ha ku nisbaynina ha ku tirinin ama laqiit ha noqdo ama walad zina ha noqdo iftiraagana inaanay la imanin wala ya'sinaka fi ma'ruf ba ilahi samana waxa samaha loo yaqaan dhamaantii inaanay kugu caasinin wala ya'sinaka wa ku filay laakiin waxa kale loo ogeeyay nabigu ma'ruf mooyana inaanu xumaawada dadka farin waxa uu faro dhameynay wanaagu yiin sadaradeed baa la iska itlaaqo leeyahay wala ya'sinaka fi ma'ruf samahana inaanay kugu caasinanin ballanka qaad samuhu marka hore waa samo oo dhan waa mutlaq culimada qaarkood sida Saïd ibn al-Musayyib oo kale wuxuu ku fasirayay waa inaanay wajiga dhirdhir baaxin oo jeebabka ama marada jeexjeexin oo balaayo aanay u yeedhano hoogayay baayay oranin oo timaha faydfaydin buu leeyahay yani haweenku marka baladu qabsato ama cid ka dhimato ama mashaakil ku dhaco waxa aan ahayd inay markaasi isdhirdhir baaxdo hoogayay jabayay baayay iyadoo leh dabeetana ama ay mariyaha dildilaaciso masarka yar intay tuurto timaha midba meel eego waxa soo dhameeyo waa dhaqan xumo islaamku uu diidan yahay وكي نياحة 4 من أمر الجاهلية أبو نبي ده أفر جاهلية كتر سنتي هذا ندت كدين ما ينبت المامي أفر تاو حكم ده نياحة ولذلك وقتاده وحليه ولا يعصينك في معروف ولا ينحنا بل كان مركو كقاضي ومعطيبة نبي قتل بيعا لقليه waxay tiri ilaahay rasuulkiisa waxa rabaa inaan bay'o kula galo laakiin markay aragtay nabiga haweenka mas'aladan u diiday waxay tiri gabadh baa jirtay berigii jaahiliyada
إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها بيت قبل ما ترتيب برقي جاهلية دا آدي وهي لسي بيت وصفي عنيق شيء هوانكي عربيد وحي استعمالي جرين مركا هواني عيدي كردي بطامة عينكا kooxda kale intay u timaaday la baroor diqaano la baroorta mid aan laga badhi man baayana baayay jabayay ka dhinac oranaysa oo marada tuuraysa oo jeexaysa caynka marka talo lala baayay lala jaba waxay tirsanaysaa in wax fiican loo qabtay marka bariga iyadoo musiibo ku dhacdo waxa laga rabaa maxay iyana intay tagtay inay baayay jabayay dikaabal gudo oo intii la tiraado waxay ku tiri ilaahay rasuulkiisa iyo haweenay baad gacanta ay ku leh iminka baycada kula geli maayaan noqdo oo qoladii ku soo taageero oo hintii dabeetana markaasi aan kula bayca galo sidii baan yeelay bayt qala idhab fas'adiha buku yiri iga tagtay haday aad abaal samaynayso marka tiibaan la soo baroortay bay leedo kadib baan soo noqday fabayatu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ala an la nanuh markaasaan baycan nabiga kula galay bay tiri inaanan baroor dambe iyo waxaan dib loo samayn doonin ee aan waxan ka joogsan doono sidaaradeed nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi ballamadu haweenkaasi la galay waxa ka mid ahaa arrimaha aynu soo sheegnay oo dhan oo ama qayladan ha noqoto waata umayma bint ruqayqa ba waxay leedahay nabiga anu salawaatullaahi wa salaamu alayhi aniga hore inaan islaamka kula bayactamo markaasuu nabigu wuxuu yidhi ubaayuki calaa an laa tushrikii billahi shay'a walaa tasriqii walaa tzni walaa taqtulii waladak walaa tadina bibuhtan taftina bayna yadayki